kusoo dhawaada kanaalkeennii Warsida Media oo alaaba aan idinkula wadaagno warar iyo macluumaad xasaasi ah. haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe garee, haddaad horey noola joogtayna fadlan like saar lana wadaag asxaabtaada kuna xirnoo mar walba kanaalkeena Warsida Media. maanta waxaan rabaa in halkan idinkula wadaago video yar oo kooban kaasoo aad kaga faa'iidi doontaan kow sida coinka loo baarto, coinanka sida loo baarto iyadoo oo lagu baaranayo sector walba goonidiisa iyadoo aad u helaysid meeshii aad ka heli kartid baan rabaa in halkan kugula wadaago. sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan kugula wadaago sida coinka aad u baaran kartid adigoo aan waqti badan isaga bixinin oo aanad website-yo booqanin oo aad kaga faa'iideysan karto AI-ga. sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan kugula wadaago application ama hadduu ilaahay kuu rabo website aad all your cryptos ku track garaynayo, haddii uu kugu jiro exchange, hadduu kugu jiro wallet, haddii uu kugu jiro hadduu ilaahay kuu ron yahay Ledger, meel kasta uu kugu jiro. waxaan rabaa inaan kugula wadaago halkan website ama application dhammaantood ku track garaynayo oo hal meel iskugu kaa keenayo all your portfolio. saddexdaas qaybood baan rabaa inaan halkan idinkula wadaago. marka koowaad haddaan kugu hormaro anigoo videoga kuusoo koobayo sida aad u baaran karto coinanka sector walba qaybtiisa sida uga baaran karto, haddii AI tahay, haddii ay metaverse tahay, haddii ay tahay exchange, haddii anything oo qayb aad u kala baaran karto. so waxaa halkan aad kaga baaran kartaa website-ka la yiraahdo cryptoslate.com baa la yiraahdaa. website-kaas aad tagaysaa kadibna waxaad ku dhufanaysaa coins, halkaas aad imaanaysaa coin markaa ku dhufatid halkan wuxuu kugu tusayaa marka coin ranking buu ku tusayaa coinka market capkiisa iyo numberka uu kaga jiro coinanka halkan sidii caadiga ahayd wey. haddii aad rabto markaa aad sectors inaad u kala baarato oo sector walba qaybtiisa aad rabto inaad ku ogaatid waxaad tagaysaa halkaas sectors baad ku dhufanaysaa. sectors markaa ku dhufato waxaa kuu soo baxayo sector walba kugu baxayo qolada advertisement-ka ka shaqeysa, kuwa AI-da ah, kuwa art-ka ka shaqeeyo, business service-ka, commissionska, content-ka iyo creation-ka qolada qaabilsan, crypto security-ga kuwa ah, debit iyo credit commissions qolada ka shaqeyso, anything aad rabtid inaad si gaara sectorskaas aad u rabtid inaad u investigate ama aad u baartid halkan aad kaga helaysaa. marka halkan markay ku jiraan oo ranking ay ku jiraan dhammaantood way isku qasan yihiin mana si fududna kuma kala heli kartid. sidaas daraadeed sectorska markaad timaado sector walbo aad rabtid si gooni uga helaysaa. hadda AI-da oo kale markaad rabtid inaad coinanka AI-da aad rabtid ee brian trendiga ah halkan aad ku dhufanaysaa, then wuxuu ku tusayaa every AI coin oo crypto ku jiro buu halkan kugu tusayaa, ama inuu ahaado mid cap ama adiga mid capkiisu iska yar yahay, mid capkiisu weyn yahay, adigu iyo meel dhexaad inta midkaa doonto ku tusaaya. you see here Singularity, Fetchnet, Oceans, bala dhammaantood numerai waa kaas iyo dhammaantood halkaasaad kaga daawanaysaa adoo iswaalin dhammaantood any sector halkaana ka helaysaa. okay, which another sector oo aan rabno inaan fiirino, let's see, waxaan rabnaa inaan baarno kuwa exchange-ga, then you will get any exchange sector. dhammaan coinanka exchange-yada ay leeyihiin halkaana ka arkaysaa. Binance, Swapcoin, Uniswap, hadduu ilaahay kuu ron yahay KuCoin token, any token oo exchange leeyahay halkaas ayaad ka helaysaa within a minute adoon isku wareegin. website-kooda description-ka idinkula wadaagi doonaa, halkanna waad ka arki kartaa. sidoo kale waxaan rabaa marka coinka markii aad sectors uu ku jira aad soo aragto inaad coinka iska baarto waqti badan bay inagu qaadan jirtay, sida inaad website-yo badan tagto ama inaad aad tagto meelo badan aad kasoo ogaato. maanta waxaan rabaa inaan halkan idinkula wadaago adoo fadhigaaga fadhiyo oo aanad ka tegin baan rabaa inaad coinkii baarato oo meel walba su-aal aad ka qabtid, meel kastoo su-aal ka qabtid aad weydiisid anagoo ka faa'iideysanayna technology-ga iyo AI-ga ay la soo sameeyaan. so let's go crypto sectors, let's go AI.
AI baan tegaynaa. We see here dhammaan AI coinska. Okay, coinkan baan rabnaa hadda Singularity inaan baaris ku sameyno. Singularity baan rabnaa inaan baaris ku sameyno. Let's go. Marka waxaan tegaynaa ChatGPT. ChatGPT waxay awood noo siinaysaa in aan wax kasta oo aan weydiino ay baaris noogu samayso, nooga soo jawaabto si degdeg ah. haddii aad Google-ka tagtid waxaa arkaysaa 100 website oo kala duwan oo qaarkood fake yihiin bay kuu soo dhigayaan. halkan waxaa idinkula wadaagi doonaa description-ka hoose idinkula wadaagi doonaa website-kooda caadiga ah oo official-ka ah oo saxda ah. deetana email iyo password buu ku weydiin doonaa, waa samaysanaysaa kadibna shaashadana ku keenaya. Let's go. Marka waxaan rabnaa maanta inaan baarno anagoo website tegin, meel kale tegin, ismashquulinin baan rabnaa ChatGPT inuu noogu sameeyo every question oo aad qabtid baad weydiinaysaa oo koonkaas ku saabsan. Okay, waxaan rabnaa hadda inaan weydiino ChatGPT-ga anagoo ka faa'iidaysanayna technology-ga AI-ga ay soo saareen. kadibna waxaan rabnaa market cap-kiisa, market supply-giisa iyo xogaa details waxyaabaha uu qabtay iyo wuxuu ka shaqeeyo inuu nala wadaago ChatGPT-ga si aanu baaris dheeri ahna aan ugu sii sameyno. su'aalaad kale oo dheeri ahna waa weydiin doonaa. aanu aragna marka jawaabta uu noo soo bixiyo. waxaa aragtaa jawaabta uu nala wadaagayo is a crypto base that build Ethereum blockchain baa lagu sameeyey uu ku leeyahay provided by decentralized platform for AI service baa loo sameeyey ku leeyahay. deetana waxaa aragtaa inuu halkan nagula wadaagay faahfaahino aad u dheer anagoon website tegin, waqti badanna aanan ku bixinin. ChatGPT-ga wuxuu inaga caawiyey in koonka uu naga siiyo warbixin dheeri ah. intaas markuu noo soo gudbiyey waxaan dhahaynaa warbixin kaloo dheeri ah ma naga sii siin kartaa, faahfaahin kaloo dheeri ah. Can you please give me more details? arag jawaabtu haddana nala wadaagi doono. adoon website tegin, meelna aanad marin baa waxaa halkan ka helaysaa wax kasta oo coinkaasi ku saabsanaa iyo meelo badan oo laga yaabo inuu waqti badan kaaga soo baxa baaristiisii baa halkan waxaa ka helaysaa. adoon waqti badan ku bixinin baa jawaabtaadii si degdeg ah buu kugula soo wadaagaya. so technology-ga waa inaan ka faa'iidaysanaa meel kasta oo uu waxyaabo cusub ka soo saaraan. macluumaadkan inaad soo baarto waqti badan bay kugu qaadan lahayd. haddana waxaa laga yaabaa within seconds inaad ku hesho adoo laptopkaaga ama telefonkaagii dul fadhiyo. haddii aan u gudubno qaybta saddexaad waxaan rabaa inaan kugula wadaago coin status. wuxuu ku taragaraynaa dhammaan portfolio-gaaga hadduu exchange ku jiro iyo haddii uu ku jiro wallet intaba dhammaantood, xataa ledger hadduu ku jiro waa isugu soo xiriirinaysaa dhammaantood. marka wuxuu kaa caawinaa inay hal meel waxaaga oo dhan ay kugu wada jiraan oo hal meel aad ka wada taragaraysid. haddii xataa tradingka lacagta kugu jirto uma baahda inaad manually gelisid, hal mar baad ku xiraysaa kadibna isagaa la soconaya dhaqdhaqaaqaaga dhammaan. qayb lacag uu leeyahay iyo qayb bilaasha intaba. haddii marka aanu tagno coin stats, halkan uu ku keenaa coin statskan. markii aad ku dhufatid waxaad leedahay get start, waxaad samaysanaysaa ciwaan, emailkaaga iyo passwordkaaga gelinaysaa kadibna halkaas kugu furmaya. ani laakiin ciwaan baa leeyahay, ciwaankaygaan gashanaya. ciwaankayga markaan geliya hadda waa ujeediin waa 0, wax ilaahay abuurtay oo dhex yaallaa ma jiraan. markaas waxaan rabaa inaan kusoo wada xirno waxaan kusoo wada xiraynaa dhammaan wixii portfolio oo aan lahayn oo dhan aan kusoo xiraynaa. hadday tahay Binance, hadday tahay walletya ayaan kusoo xiraynaa.
deetana intaas markii aan sameynayno waxaan kaga baahan yahay add portfolio connect halkaas ay ku qoran tahay ku dhufanayna connect markaan ku dhufano halkaas waxaan teginaa waxa alla waxaa rabtaa ku qoraysaa ama trust wallet aa gelinaysaa ledger gelinaysaa waxaad rabtid exchange-ga raadinaysaa laakiin hadda anaga Binance ayaan gelinaa Binance maadaama aan galayno Binance waxaa nalo kaga baahan halkaas inaan soo gelino halkaas inaan soo gelinaa nalo kaga baahan yahay ABK-ga iyo APY-ga waxaas ku qoran tahay deetana halkaas marka si aan ku soo gelino waa inaan tagnaa exchange-geeni baan kasoo sameynaynaa Binance baan tegaynaa Binance baan kasoo sameynaynaa create API baa leedahay API-ga magaciisa halkaas kusoo qoraysaa waa soo create garaynaysaa halkan waxaa gelinaysaa marka authentication-kaaga email telephone iyo authentication wixii kugu xidhnaa oo dhan baa gelinaysaa markaasaa u wada gelisid nambarada aan soo gelgelin nambarada markaasaa ugu buuxbuuxiso kadibna wakaasaa wuxuu iisoo saaray API-ga koobiyeynaynaa marka waxaanu geynaynaa CoinStartkii API-ga waxoogaa yar baan saaray marka si safety-ga ah marka kana koobiyeynaynaa waxaan tegaynaa halkaas API-gii baa ku koobiyeynaynaa kadib mar labaad waxaan soo koobiyeynaynaa copy baan soo leenahay kadibna halkaasaan paste ku leenahay markaan soo paste gareyno dabadeed connect wax alla wixii aan qaban jirno dhan buu saar hadda anagu uma baahnin qaybtan featureska iyo waxaas kaliya sportka baa u baahan hadda features leenahay waa furan kartaa laakiin sportskaas kaliya furanahay good successful ujeeda halka wuxuu ku tusayaa your gains kuwa ugu fiicnaa coininka ugu fiicnaa gains fiican kuu sameeyo halkan ku tusayaa haddaad rabto skip waa iska dhigi kartaa haddii kalena next baa iska leenahay kuwii loserska ahaana wuu ku tusayaa kuwii ugu lacagta yaraayo wuu ku tusayaa halkan haddaad u baahnay next baa iska dhigi kartaa haddii kalena skip baa dhigi kartaa fiigii wixii lagaa qaaday wax allaale wixii macluumaad ahaa oo dhan oo akoonkaaga maalintii la sameeyey ilaa hadda inta ugu dambeysay ku jiray buu halkan ku track garaynaa marka agartay deetana waa ujeedaa waxa allaale waxaan kusoo xiraynaa haddana MetaMask-ga markaan kusoo xirayno haddaa rabta kuwo kale oo ku xiran kartaa laakiin anagu MetaMask-gaan tegaynaa MetaMask 1 baa leenahay marka magacaan u sameynaynaa deetana MetaMask-gaan ku xiraynaa ku connect wallet-kaan kusoo xiraynaa kusoo connect garaynaynaa it's easy inaa wallet-kaaga kusoo xiratidna wax dhib badan maaha qofka inuu garan karo maraynaa xataa ledger haddaa leedahay ledger-kaaga waa kusoo xiran kartaa successful asagana waa aragtaa wixii ku jira halkaasuu nagula wadaagaya deetana waxaa kusoo xiran kartaa any application any wallet oo aa leedahay ama ha noqdo exchange ama ha noqdo wallet kale dhammaantood halkaan iskugu kansanaysaa kadibna kulligood buu ku wada taragaraynaa maca lacagta tradingka kugu jirto aleleh lacagta kugu jirto walletka uma baahnid mar dambe inaad si gacanta u gelisid dhammaan wax allaale iyo wixii aad soo gaday iyo wixii aad iska sii gaday kulligood halkanay kugu wada jiraan waa garatay soma marka webkan kale asagana aad iyo aad buu u yara fiican yahay marka idinkuna insha allahu tacaala qayb lacaga iyo qayb bilaasha intaba waa uu leeyahay marka dee idinkuna baaristiina ku darsada saddexdaas baan rabay maanta inaan idinla wadaago aad iyo aad baa u mahadsantihiin ku xidhnaada barnaamijka mar walbana nagala qayb qaata insha allahu tacaala la wadaaga asxaabtaada like garee barnaamijka aad iyo aad baa u mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakatu